xuska 18 May ayaa dalka Djibouti sanadkan 2022 si ballaaran looga xusay iyada oo xafladda 18 May ee 31 guurada markii Soomaaliland ka soo go'day Soomaaliya 1991 ayaa waxa lagu qabtay xaflad aad u ballaaran hoteelka Sheraton ee ku yaala caasimadda Djibouti. daawadayaal sidaan la wada socono dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu xornimada haystay waxa ka soo wareegtay 13 sano sida aad la socotaan waxa laga xusayaa waddanka Djibouti xafladda 18 May ee 13 guurada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu ka soo go'ay dalka Soomaaliya. xafladda 18 May ee lagu qabtay waddanka Djibouti ayaa waxa lagu soo bandhigay heeso wadaniya oo ay ku heesayeen fanaaniinta reer Djibouti. intii ay socotay xafladda 18 May ee 13 guurada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa hadallo kala duwan ka soo jeediyay haweenkii iyagu soo agaasimay soona qaban qaabiyay xafladdaasi 18 May. xafladani ayaa waxay aad uga sii weyneed ugana sii ballaadhnayd xafladihii hore ee 18 May ee lagu qaban jiray waddanka Djibouti. insha Allah bismillaahi kariim ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay inta joogto halkaasi ay afgarato oo madaxdeenu ku dadaasho maanta hawsha ay wadaan ay ku dadaalaan ilaahay bari halkana waxa inagu reer Djibouti hadaynu nahay waxaan salaamayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo Khadra Maxamuud Xayd waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo madaxdeeni dhamaan Soomaaliland iyo Djibouti waa laba mataano meel wada ku timaadeen ee aad maxaan ku dhadaa u bisheen aad u qurxiseen Allah idin qurxiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa. marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd ayaan salaamayaa. waxaan salaamayaa ciidanka Djibouti oo dhan iyo dadka ummadda reer Djibouti oo dhan baan salaamayaa. marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xaasaskiisa ayaan salaamayaa. waxaan salaamayaa saddexda xisbi qaran waxaan salaamayaa golaha guurtida waxaan salaamayaa golaha deegaanka golaha baarlamaanka ciidanka qalabka sida ee dhaxanta sida u taagan habeenaya maalin beena difaaca ee la ilaaliyo Soomaaliland baan leeyahay ha jiraan oo ilaahay cadawgooda ha jabiyo insha Allah waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo buuxda. waxa weeye waxaan ugu dhici jiray iyo waxaasaan soo maray wixii aad soo martay oo aad ka meedhatay maanta waxaanu ka sheekaynaynaa barwaaqo sooranka aynu ku jirro quruxda aynu ku jirro guusha ay hayaana guul ballaaran Allah uga dhigo. haddaan hooyadii Djibouti ahay ee magaalada halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha ayaga Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd. kollayba waxaan nahay dad isku duuban dad walaala dir iyo duulkeed baan nahay marka meel wada daaqo dal iyo dhasheedna oo meel wada joogaan nahay insha Allah kuwa isku duuban ee meel wada joogsado Allah ay naga dhigo. waxaan leeyahay walaalahayo ilaahay nabadooda hana tuso.
wadna maxamed jaamac waale warbaahinta qaranka Soomaaliland Jabuuti